maalintiyo habeenka istaba maro mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan maalintiyo habeenka istaba maro mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan mugdi iyo iftiin marma wada kulmaan mudbada walaali kala maqna maslaxada allayna kuwada mareen yadan kamida odayaal wax garad baa jooga oo mataqaanay qaryada kamida hablaha jooga oo dumar baa jooga dhammaan markaan kolley insha allahu tacaala ra'yiga annaga iyo martida annaga ayaga insha allahu tacaala marti ugu nahay ayagana na siin doonaan ayagana noo hadli doonaan laakiin annaga qasadka annaga ugu muhiimsan waxaa weeye kuuraan idinka rabnaa inaad na siisaanna waan idinka doonaynaa insha allahu tacaala hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan aaminsannahay xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam ahaa qof kasta oo addoona uurka hooyadii maalinkuu ku jiray 40 bir isagoo ah wixii loo abuuray ayuu helayaa waxa aan raadinayno gabadha aan u raadinayno ee martida hadda aan ku nahay ku keenay ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadduu u qorayna way helaysaa ilaahay hadduu u qori waayana idinka iyo cidda kaleba cid lagu eedi ma laha annaga roobanaano anoo neera aan nafteeraysan gurbanahay inaad nala qaadaan oo gabadhaan aan isticmaalna gabadha mulki baa leeyahay waa gabadha halka fadhida gabadha laba ibnood bay waxa weeyaan ku fiican tahay waa gabar akhlaaq iyo diin leh waa gabar hadana dhakhtarad ah qofka samafalo oo dhakhtar uu beer nugul yahay dadkana uu gargaari waa qof ku xanuunsan bulshada inteeda nugul saadabto marka gabadhaas waxaan rabnaa gabdhaha kale faraha badan ee dibadaha ka imaadeen taas gabdhayno gabadha ayada gabar gaarisa gabar balafala gabar saangure qoran baaheli tilmaanta hadda ay u ogtahay iyo sida hadda loo soo wada baxay iyo waqtiga gaaban oo report inaan nasiinay hadda isku ma eko aan naftay waan yaa maxaan niri meeshaan ka soo dhacay ninkii iga hormaad maxaan niri reportna ma soo siinin say wax u jira reportna ma soo siinin say wax u jira len horlana wuu ahaa sidii us report noo soo siinin iyo sidii loo soo wada baxay macaamil hadda isku ma eko waa barqaana macaan ku soo dhawaada gobol awda fedsan yaa ilaahay baa ku nooya imaateen waxa weeye meeshan dalolomidi baa la yiraahdaa awda qaba wada fadhiya cidra qaasina way fadhidaa cidra haaruna way fadhidaa cidra maxaala way fadhidaa lama dhigi kara maxaad kaligi baa fadhiya inkastoo majawrisku uu u baday laakiin awda federation way ogaada hor ku soo dhawaada waxaan malan waxaan oo dad aan malan xal isku meel ku baryin mulkina guruguru u maytooni awda anay xumeen baan u malayni balaan baxan wanaagsan loo soo balaan baxay maalinka wax dhacayana sidoo ka sifa nagu soo balaan bixi doonaan u malayni duubiyay aan u malayni maxay baa mulkiyay inaa xumeen baan u malaynayaa soo dhawaada idinka hortiin gabar awdaaqa oo gool siyaad kullu liraa meesha lagu martay oo sidoo lagu barsay wallahi waxaan ku dhigi karaa ayada oo naloo soo digay oo gaariga dhawaaqahay oo dabin la dhex ordahay hadda sidoo hadda anaga kala dooguma soo bixin dadkina anaga gaari ku doon laqaatiyo oo soo arunay yaay noqotay laakiin dib hadda digtan aan arkaayo waa mid kale oo gaar ah oo higooda alla ku siiyay waa calaamad kale وصار ما في الوتمة ولو أمانة كل إتوهاي مال بإذا فرحت فانصب إلى ربك فرق بإسكاية مال أخرب حمال مسؤول جلسي أكثر إليه هذا كبكارة سرده إن شاء الله إليه يقول مرتي شرفت بان خيل يا بدن هو جامعنا سجادة ولا شنه ملكي وسمع قريبه ملكي قريبه ملكي توشا ملكي توشا ملكي توشا ملكي توشا انت كده عادي مرة واحد مرة سجعات يقول ولا شنه مسؤول بيننا ما انت طبعا سوينا ان شاء الله تعالى وانقدرنا ونبغانا ان شاء الله marka walaashay soo dhawow balleja habeen iyo maalin aday ku joogaan gabar walaasha anaga tahay annaga haddaan dhalinyaranahay waxaan rabnaa qofka baahida aniga noo fulin karo
qofka bini'aadanka maxaa la dhahay ama aqoon maxay ku imaan ama aqoon gala ama ugu gala marka waxaa waaye qof weyn ayaa tahay qof maamo ayaa tahay qof baahida anaga anfici karaa tahay mooye qof dhalinyaro hadhow anaga haddaan gurigiisa ugu tagno wax kaloo iska dhadhacsiin karo dhalinyarada marka mid waa midaas midaan kugu jeclaan midaas waayay qof maxaa tahay waalid noocay waana dhashay dhibla-aan baana dhashay gabar cawdaaq baa tahay daacadaynay haddaad tihiin gabadhan noo imaatay maanta horta soo dhawaada martidii noo imaatay ee nooga imaatay gaarash inagana gacmo badan ku soo dhaweeya markaas kurii inaan siino gabadhii ma qaadeen daacadaynay haddaad tihiin daacadaynay gabadha ma qaadeen semaju harambe 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 هذا إسكاله واقعني منك جو دكتورة دليل الملك دلت على إسكاله إنت اللي ولا نشيل جو واقعني لو ما قعد اللي يرد ألف والله واقعني جو haddii aa inaad meesha tahay kuula ratay wax ka soo hormaray oo hadda noo imaaday bay jirin oo weli hadda kula codina soo maray far yar baana wakiilka ahayn meel kalena wakiilka ahayn laakiin cadinay kuuraheeda waxaa iska rabin taasaad kusoo dhawaanaysaa afuran qalbi furan intaba waad kusoo dhawaanaysaa adayday waan deganahay gabadha muuna reebkeed mulkii sarafleyda waa la qaaday annaga bilcaan iyo dhalinba haddaana waan qaadnay waa idin salaamaya martida sharafta leh noo umaatay soo dhawaada kolkiina u soo dhawaada alxamdulilah rabbil caalamiin waan qaadaynaa gabadha waxaan u malayn gabar nooga horreysa maro jid intay maran bay meeshaan kusigama wax kale qaban arkin waxaa la dhahaa soomaalida waxay tiraa hebel anigu wuxuu ii qabo kataniyo mala ilama la hadlo inuu ii dhifaya ma ogi aniga gabdhaha inoo dhifaya kuwa kale u malaynayaa gabadha noomay dhifana way noo umaatay wayna soo qadarisay ninka taqadariyana waa la qadariyaa gabadha waan soo dhawaynaynaa gabadhan weligeed maana arag waa qaadnay waa soo dhaweynay haddii ilaahay nasiib aga dhigo way soo jireen meeshan siiyadan aan lagu maraa hadda duqa wuxuu lahaa gabadhii hore siiyey ugu dhaq wax kasta oo caynkaasee waa sidaa ayada wax kasta caynkaasuu lagu maraa ya marka waxaan doonaynaa ballantii haddaan qaad iyada wax ka soo horreeyay gabadhan oo la hadalay ama noo imaaday oo waxbaan rabaanayay ma jirto hadday iyada noo soo horreysay ayadaan qaadaynaa waan idin qaadnay gabadhaayna qiimadaa badan heefaryar haddaan nahay waxaan u baahannahay sidii aan u qaadnay annagu waxaan ku soo dhawaynaynaa dadkan martida noo imaaday weji furan iyo gacmo furan iyo soo dhaways wanaagsan waan ogsoonnahay ninba nin buu ku xiran yahay ninba nin buu rabaa inuu kuulaha siiyo hadda waxaan noo imaaday gabadhan annaga anigaan reeraayaanna waa reer balanbalaa baan gabadhan warsamaa dhalay waxay ku dhalatay balanbala habarteed suuli baa la yidhaha waxay deganaan jirta balanbala naag madaxa bay ahayd hataa beri bay damcadaba jiifnimada balanbala inay ayada qaado aad baan u garanaynaa way haddana ayadii oo haddee islaam bilcaan magaalada duqbaata lama dhihi karee gabadhii bay wadaa waxaad ogaanaysiin ood ku soo dhawaanaysiin gabadhaa waa balanbalaa warsame xaaji maxmed xaragaa dhale waxaan rabnaa in la qaado dadka siduu ciise bogada waxaa taariikh ka noqonoo garanaay waa lagu qasbay mogi marka hal waa dhiid iyo laqabid waxaan qabaa siduu ciise ku hadlay gabadhii ay joogto waa ciddoodi meesha hadda meel ugu dhow imaanaheedna ma laha marka gabadhii la soo dhaweeyo siduu ciise sheegay mid ayaday ku xiranta dadka waa laaga soo horreeyey dad badan baa kaaga soo horreeyey inaad shaqadaadii hoos u gasho aday kula jirtaa كل واحد ملاني أنا بطمن كذا بحاجة مثل بقى وأنا قصدي كذا لا بلا يوجد أنا قاعد إلى بس تقرير يعني وطبعا بلا موجود أنت عدو تكا بجا وأشيلي وكا هكذا يا صار حتى بعد ما عودنا كل كذا جوكا تكذا ولا جوكا
ilaahay soo bari waxaan rabnaa anaga inaad soo gasho waxaan rabaa gabadhan walaashaan ee mulkiyey inaan soo gelino aan soo dooranno oo ayadana dhow dambe aan la xisaabtanno oo aan dhahno dee waan ku soo dooranay walaalay maxaa jiraan marka waxaan rabnaa inaan soo gelno har iyo jeerba aan qabanno gabadhaas aniga oo mukhtaar cali sheekh cabdullaahi oo ku hadlaya dhalinta raaya codkooda mulki waan qaadnay inigan aan la qaada hadday noqon doonin sidii hore ayada ay ku hore ay sameeyeen ayada horta way soo geli meeshaan raaya waa la dhaha qofkii aan wadna wuu soo galaa meeshaan ka muuqato waa buurqaar intan buurraxmaan ah kaasaa martay sharafta leh way maatay ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada waxaan u malaynayaa gabadhan mulki wasame qabaarka midna soo gaari ma dhaweyn intaada waan sugaynay annagoo si aad u faraxsan inay kuurahan soo gaarto si aad baan u sugaynay insha allah markaa kuuraha waan ku siinaynaa ku soo dhawow annagana waan qaadne si sharaf leh wanaag waan ku qaadne sida sharafta wanaagga taa loo qaadno waa lagula qaadaya kuuriyana waa helay jinsi allu qoon baan helay waxaan rabnaa sida lagu qaaday sharafteeda inay marto kuumana soo dhaweynayna u malayna kuwa saabooda meesha waa cidaada gurigaada waaye gobashaadana way taala marka sii tukid annaga waxaa waye alla kuudidu waa gees oo ilaahay qoran baa kollo qoran oo ilaahay qoran baa qoran laakiin waa la raadsadaa saaqada waxaa waa ilaahay raadsataa marka kollo inta waa wixii ilaahay kuudiido ma ogeey annaga waxba nagu maynaysa raasha baxdaan aan ku qaadnay taasaa ogaadaysaa ku soo dhawow horta meesha adiga iskale meesha waa lagu dhalay karaabaan la yahay nimaan ku garanayna haddaad og tagto magacaada unbaa loo sheegi lahaa magacaada unbuu maqli lahaa ilaa waan ku garanaynaa soo ma ku soo dhawow kuurahaada iskale gabar cawdaaq oo noo horayso waa gabadha waa maryam soo ma waa maryam soo ma gabar noo imaatay oo koow salaam calaykum wasalcada noogu horaysa gabadha kale cawdaaq noo imaatana kaama ficno kaama ficno dhalashada kuma dheero adaa kuuraha u imaatay adaa kuuraha lagu siiy warsamooy haddii nala saro dhiiggaada naga imaan hanaga caran saangur gabdhaha odayaasha muslimka ku nool ee soomaalida ku nool magaaladeena saangur iyo cidda cawdaaqbo waxaan ileeyahay namayaw gabadhaa waa gabar dhakhtarad ah gabadhaa waa gabar dhakhtarad ah waayihii hadda u dambaysa ani sheekha aabbahay baa iga xanuunsanaayo meelo fara badan isbitaallo iyo dhakhaatiir fara badan baan maray gabadhaas abaalka ee ka gashay isbitaalka weyn iyo siday samafal u tahay oo dadka u saacidaysa wax la soo koobi kara ma aha wuxuu soo idheendhee oo noo keenay waan ka qaadanay gabar cawdaa waaye inaan dhisno oon soo dhowayno oon ku faraxno waan ku qasbannahay gabadhan waan qaadaynaa waana dhisaynaa midda kalena waan ka wada hadli doonnaa gabar kalaa imaataa la yidhi dowa annaka maana joogin markaa iyaday laakiin dad joogay waa jira ilaa hadda tan unbaa annaka loo koowe taley waan qaadaynaa waan dhisaynaa kuurahana waan siinaynaa hoosaan guri wad dhalintan wada madam insha allah waan ku garab taaganahay markaa kursiga heshana saangurinaas u ogaato hoosaan u fiirso insha allah wayna soo geli wabilaahi taala dhammaan waa mahadsantihiin saa ugu soo baxday gabadhan walaasheena ee mulki markii sharaf kale waan soo dhaweynaa aniga waxaan u hadlayaa dhallinyarada dololamidi marka gabadhan walaasheen waxaan rabaa inay ogaato dhallinyarada dollo ee duuba ama wax walba ay wax ka ogaato midda kale aan u sheegay waxaa waaye tiim dolada jira soo tiimkii waxaan rabaa inuu waa hadda tiim dololamid waay laakiin marka ay soo gasho waxaan rabaa inuu noqo tiim mulki insha allah gurigaada ku soo dhawow mulkiyay gurigaada ku soo dhawow kuuraha balli jana gurigaada imaata ku soo dhawow gacmo faro ku soo dhawow farxaan ku soo dhawow adaa iskale magaalada martibatida lacagtii 15 kun ee markii la sheegtay way bixisay way soo sheegtay ma dircid noogu gaban maanta qamiis ay baasan
خميس هاي باسنا هذا وكلية إسلام ما سنت تراي لو كن قبسة أو كسيسو marka abaarta labada waa jiray mar meelaha tuugay ugu disho taniga ka dhacday Matono istaalka ay ka kadibna waxay geysay station report ay qortay qolada ay ayna mid u raisay hadana ilaa marka dambe DJ-ga ay soo celisay qofka lama heli kara markaas magaar kale aan ka helaa gabadhan walaashay waa u dhigmataa waxay qaban doonto aniga hadda liibsi dad ma sii wareysanay marka xaaladdeeda see way ma dhahay waxay qabanayso anoo hurda oo liibsa wax kale ma dhigi karin madaxa ay noo saaran tahay laakiin aad joogto xaafadda sida la sheegay kuura meesha isma barbariya anaga isma weydilayno gacanta iyo sanduuqa looma dhaxaynayo mulki kariib ayaan leeyahay warkana waana siyaasaga laba nooc waa qof isku soo bixiyo bulshada inuu wax u qabto iyo qof inuu asaga danaysto isku soo bixiyo siyaasadda horta labada nooc bay qabtaan allaha naga qabto wixii shakhsi dantiisa u socdo allaha naga qabto waxaan idiin sheegayaa sidii hortayda loo sheegay gabadhan walaashiin ah inay istaalka weyn oo gaaris ay ka shaqayn jirtay qof bulshada ku dhex jira inaan ahaa oon intaasoo sana bulshada aan u xamaali jiray aniga waxaad ogaatiin gabadha hortiina taagan gaaris tawshib meeshaan ka imaaday masaakiin aan sitiimar u xiro 50 qoys inay jirto waxaa kaloo jira agoommo aniga dukaamo aan u furay ilmihii lagu aqrisiyey ay secondary maanta marayaan waxaa jirta istaalka weyn oo gaaris markaan joogay ninkii ii imaado asagoo dhibaataysan asagoo bidax iyo midig fiirinin inaan si alla siduu rabo intaan u sameeyo wiirida ka soo bixi jiray markaan intaa samaynaye siyaasa rajo igama jirin hawana kama qabin amaad gambar u soo istaagtaa intaa waxaan u samaynayay inaan communitygayga iyo dadkayga meeshii aan taraayo oon aniga fursad u haysta inaan ka caawin karo aan dadweynaha ka caawiyo marka waxaad arrintaa idinku sheegayo waxaa waaye gabdhaha taagan oo gambarka siyaasadda doonayaan way badan yihiin laakiin haddana waa la kala yahay waxyaabo badan oo laisku gaarinaa jirtaa kartida laiskuma gaaro waxqabadka laiskuma gaaro naxariista laiskuma gaaro intaba inaan iska fiirino waa waajib waxaan idin leeyahay markaan isgarab soconno aniyo gabdhahaas oo kambaynka aan ku jirno waxaanaan soo qaban doonaa ayay ku kambayn garaystaan laakiin aniga waxaan ku socdaa waxaanaan soo qabtay iyo waxaanaan soo qabtay sooma kala nihin qof wuxuu soo qabta bannaanka yaallo iyo qof waxuu qaban doono ka sheekaynayo horta way kala yihiin marka waxaan idin leeyahay gambarka ogaadeen baa ku tartamahayaa Gaarisa County haddii la kala qaybsamana gambarka asaga ah inuu dhumo u dhawaanayo marka iniga naftiina reer Saangur intaad isla fiirisaan dhinac walba fiirisaan yaa u malaynayna ummadda inuu wax u tari karo intaad dhahdaan wax qabadka dadka aad fiirisaan qofkaad u malaynaysiin bari inuu idinku soo noqonayo kooraha dhinaciisa ha loo badiyo biidnillaah waxaan idin leeyahay waxaa kale oo gabdhaha taagan aniga aan kaga fiicanahay oo bannaanka la taaganya waxay tahay inta sanaan aniga community ku dhex jiro la shaqaynayo oo kii dhibaataysan baa wax ka qabanay gabdhahan ayaga maanta ila taratamayaan dibadda ay ku maqnaayeen shalay dibadda ka soo caga dhigteen ayagoo gambar doonayaan mulki Gaarisa ayay degan tahay magaalada Gaarisa qaadi maadada gabdha dantay hadda haystaan hadday u suurtagasho iyo hadday u suurtagali wayso labadaba ina arki doonin maxaa yeelay ruuxa hadday u suurtagali wayso baasportkiisa gacanta ku haysto horun buu kasii duuli hadday u suurtagashana dhibkiina ma ogaan karaan waayo inta sana oo mulka idinku dhex jirtay ayaga way idinka maqnaayeen sooma kala nihin dadkaas oo kale kuma sheegayi waa gabdho walaalahay ah waa gabdho sharaf iyo qiimo ah laakiin waxaan ku kala duwannahay waa intaas qof bulshada ku jiro iyo qof aan bulshada ku jirin baan kala nahay aan kala fiirsano 5 sano walba siyaasadda markay dhammaato qof baan dooranaa haddana annagunba ooynaa sababtana waxay tahay kama fiirsano qofka aan dooranayno aan ka fiirsanno hadduu ilaahay yidhaahdo qofka muxuu soo qabte muxuu qaban doonaa suu yahay wax ma noo tari karaa inaan ku xisaabtanno waa shay waajib ah qof asal la soo dooranin xafiis loo soo dooranin waxaas bulshada u soo qabtay laleeyahay maanta tan u qabtay iyo qof
aan bulshada waxba ka sheeganin hadda maanta reesaanguur intay dhahaan waan oomana haddaan 3 gaari oo biyoolo keeno waxba idinma qabanin dantayda u shaqaysta run isabaan gabdhaha hadda markay soo istaageen ayaa laga yaabaa inay meelo maaragtay wax gegeeyeen maanta meeshaan aan wax geeye shalay meeshaasaan wax geeyey leeyihin arrintaa waxaa waaye markaad soo istaagto wixii aad geyso dantaadaad u geysay iyo dadka ku soo jiido marka waa la kala yahay laakiin 8 sano hadda ka hore siyaasad ruux isagoo ku jirin dadka uu sitiimar u xiray iyo agoomihii dukaamaha ugu furay ilaa maanta la isticmaalayo waan kala nahay niman yow ogaada